بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديال كسول هذا برامج كجولة تي في ورك السوق وين ساكي ورجسيدا يقرأنا حكمده أنا فرمنا بوجبا ماديسونا أنا كوتينو رمسي ورك جودن بسوق كليبسيجا ساكي ورجسيدا يقرأنا دا ديال إدينسو جودبنا حبا وين حكمده بايرن مونخ ayaa diyaarinaysa dalab dhan 25 milyan oo euro oo ay ku dalbanayso siyaaxa xidiga weerarka ugu ciyaara Liverpool ee Roberto Firmino sida ay daabacday dasana sidoo kale Bayern Munich ayaa ku dhow siyaaxa xidiga garabka ugu ciyaara Manchester City ee Leroy Sane sida uu daabacay wargeyska dasana xidiga qadka dhexe kooxda Man United ayaa isku day doonta in uu xagaaga isaga tago Man United xilli 12 bilood uu ka dhisan doono heshiiskiisa sida ay daabacday Manchester Evening News Man United ayaa qorshaheeda ka saartay xidiga qadka dhexe uga ciyaara Leicester City ee James Maddison xil uu 33 sano jirka ku dhow yahay inuu heshiis cusub u sii kooxdiisa sida ay daabacday Express tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa bartilmaameedkiisa ugu waaweyn ka dhigtay xidiga qadka dhexe ee Bayer Leverkusen ninka lagu magacaabo Kai Havertz kaas oo u dhaqaaqi doono xagaaga sida ay daabacday Express Klopp ayaa sidoo kale ka fiirsanaya inuu Philippe Coutinho dib ugu soo celiyo kooxda isaga oo marka hore heshiis ama ku keenaya Anfield sida ay daabacday Star xidiga qadka dhexe uga ciyaara Chelsea Jorginho ayaa wakiilkiisa u sheegay inuu ka caawiyo inuu ku biiro Juventus sida uu daabacay wargeyska Mela golayaha kooxda Ajax Andre Onana ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Chelsea kadib markii uu doortay inuu ku biiro Stamford Bridge iskana diiday kooxda Barcelona iyo PSG sida uu daabacay wargeyska lagu magacaabo Court of Seda kooxda Man United ayaa ku rajo weyn inay dhameystirto siyaaxa xidiga qadka dhexe ee kooxda West Ham ninka lagu magacaabo Declan Rice sida ay daabacday Manchester Evening News dafca kooxda Napoli ee Khalid Koulibaly ayaa lagu burburin karaa heshiiskiisa lacag dhan 127 milyan oo euro xagaaga bartamaha July ee soo aadana sida ay daabacday wargeyska Damirara kooxda Bayern Munich ayaa doonaysa inay xagaaga iska iibiso xidiga qadka dhexe ee Aaron Ramsey bilo kadib markii uu si xor ah ugu soo biiray sida uu daabacay wargeyska ka soo baxay Italy ee Calcio Mercato wakiilka Philippe Coutinho ayaa lagu soo waramayaa in uu siyaaxa xidiga usoo bandhigay kooxda Arsenal sida ay daabacday wargeyska Telegraph kooxda Liverpool ayaa u dhaqaaqi karta siyaaxa xidiga qadka dhexe ee kooxda Juventus Aaron Ramsey hadii uu doorto ku soo laabashada Premier League sida uu daabacay wargeyska Dasana waxyaabo kale ugu weyn xakimada saakay daawadayaal wargeysyada qorayana Mkhitaryan ayaa qarka u saaran inuu ku laabto Arsenal xagaaga iyadoo Roma ay diyaar u tahay inay bixiso 20 milyan sida uu daabacay wargeyska Dasana AC Milan iyo Arsenal ayaa ku dagaalamaya afar qaabka ay ku doonayaan inay ku soo xirigeliyaan xidiga qadka dhexe ee kooxda Hafri ninka lagu magacaabo Babi Guaya sida laga soo xigtay wargeyska Spain ka soo baxay Mundo Deportivo waxyaabo kale daawadayaal suuqa klibs ugu weyn xakimada kooxda Chelsea ayaa ku biirtay loolanka loogu jiro bartilmaameedka kooxda Arsenal ninka lagu magacaabo Orkuna Koku sida laga soo xigtay wargeyska ka soo baxa Turkiga lagu magacaabo Malayta waxyaabo kale ugu weyn suuqa klibs waxa kamid Liverpool Manchester City Chelsea ayaa dhamaantood ka fiirsanaya ama xiisanayaan inay u dhaqaaqaan xagaaga xidiga garabka ugu ciyaara kooxda Villarreal ninka lagu magacaabo Samuel Chukwueze sidoo kale waxyaabo kale ugu weyn xakimada agaasimaha farsamada Bologna ninka lagu magacaabo Walter Sabatini ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Juventus aysan haysan lacag lagu burburin karo qadaraaska ninka lagu magacaabo Riccardo Orsolini marka sida uu waxayna ku doonayaan 70 milyan sida uu daabacay wargeyska Calcio Mercato